السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحنا channel كي ودين سلامة دمانتينا ميل والبعد جوكتان يحلي والبعد تحب ودين سلامة. وفرح سنة هاي معلمها عننا بدت إذن سوء هاي ومحل الإعلام من لو ذا جاي أفكار تيجي يوحي قروح بدن وعن يعلان لهين كدلنا يرهاني ناس ما يسنو. الحمد لله ما شاء الله. maalin qurux badan way maanta aniga maalin ay tahay qof walba waqtiga uu tahay wanaagsan aan rajeynaa insha Allah oo qurux badan run ahaantii waxaan rabay maanta inaan sheego dhalinyarada isoo dhiirigelisay barnaamijkii dhalinyarada inaan ka hadlo oo si fiican ay u bogaadiyeen way ku maadsan yihiin bogaadintooda iyo sida qurux badan ay igu dhiirigeliyeen inaan ka soo hadlo barnaamijka dhalinyarada dhalinyarada haddaan ahayna annaga inaan isku hadalno oo aan wax isu sheegno aad ay muhiim u tahay. waxaan rabay maanta inaan barnaamijku waa kii dhalinyarada oo keliya maxaa la yiraahdaa iyo haweenka oo ka hadlayay maantana inaan diiradda saarno sidii dhalinyarada waxyaabaha oo shaqooyinka waddanka yaal waxaa ka mid ah waxyaabaha shaqooyinka waddanka yaal waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa shaqooyinka caadiga oo dabiiciga ah waaye حكمدا سيد dhalinyarada waxay wataan mooto bajaaj ku shaqeystaan mootada waxay u kala baxdaa labo qofna waxa la yiraahdaa waa uu soo gataa ama waalidiinta soo gadaan ama deen soo qaato qofna asaga iska leh oo ku shaqeysta qofna asna uu ku kireystaa qof waxa jir shakhsi oo ganacsata ah oo mooto bajaaj wato oo uu mooto bajaaj leh aan leh wato leh kadibna qof dhalinyaro ah uu shaqo abuur ugu sameeyay qof dhalinyarada wuxuu sameeyay mootada u dhiibaa qofkan uu ku soo shaqeynooyaa markuu ku soo shaqeey kadib waxay noqonaysaa waxa la yiraahdaa wax wanaagsan waa moqtahay in uu gacanta ku soo dhiibto qofkan uu soo shaqeynaa maanta asna inuu ku heshiinayaan intaas uu u soo diraa wixii kalena asaga iska leh qofka shaqeystay marka mowduuca maanta kaas uu ahaa because dhalinyaradu hadda waa aragtay waalidiintoodu wadankeena waxaa jiro dhaqan xumiya ka jirto shaqo xumiya jirto dadku lacag ma wada haystaan wax ma wada gadan karaan laakiin waxaa jiro hadda sidii hore ma ahan waxaa imaaday bangiyo oo dadka deen xataa siinaayo damiin wixii rabaan iska aadaan laakiin deenta xataa lama heli jirin waqtigii hore marka hadda qofka dhalinyaro ah intaad bixi lahayd oo wadan kale aad tagi lahayd oo aad dhibaato iyo maxaa la yiraahdaa mushkilad iyo rafaad iyo waalidiintaada ka murugoodo iyagana maxaa la yiraahdaa ishaq aad gali lahayd waxaa kaga wanaagsan in aad mooto bajaajtaas qofkaas oo qaraab familka asaga naftiisa Soomaalidu walaalo moogtahay adeer iyo abti iyo waxaan soo isku yahay oo asagana oo rabo uusan wadi karin oo haddana soo gadi karo laakiin inaad adigana aad ku shaqeysid ninkan uu lahaado muhiim maahan lahaasha waa in aad ku shaqeysanaysid waaye waxaan rabaa dhalinyarada tan kalena waxay tahay oo adigina inaad noqotid qof aamin ah laga rabo marka si aad maxaa la yiraahdaa u shaqeystid qofka ka hadii aad rabto horumar inaad gaartid wadankaada inaad ku kalsoonaatid aad ay muhiim tahay because anaga wadankeena kuma kalsoonay qof walba shaqo yar uu haayaa ama shaqo weyn uu haayaa wuxuu ku xisaabtamaa suu wadanka uga tagi lahaa haddaan ku xisaabtan suu wadanka uga tagi lahayd adoo dhibaato iyo rafaad wax walba la kulmaysid sama hadhow hadana marka dhalinyaro ilaahay ka xabsada wadankeena ilaahay nabad nooga dhigay wadankeena hodan waaye si maxaa la yiraahdaa ay sheegaan anaga uu horumar u gaarno oo aan u shaqeysano number 1 ina nafteena ku kalsoonaano oo nafteena aan dhiirigelino oo nafteena aan isdhahno aleelahay waxaan ahay dad wax qabsan karo يا ودن كان أنا قاعد أسكله أنت قاعد أنا ودن كي كم السعودي هذا هذا وحول بوك وهجاجا يعني لكن هذا ربطه أنا ودن كان كتكتب شغول بقى قبل تجستي مكو قناع سنين واحد مكو قناع سنين إنه مكو هجاجا يعني قلبي جاجا هدي أو حس قبلني سأ قناع سنتها محل رجعش هاي وحيس سا وقتي ولا بشغال سفيان أو قبل سنة لكن هدي ربطي محل هذا أي شيء ربطي أنا مشان كتكتب والله عيره راستي وأبحدي وحسبيستي هادو maxay noqonaysaa qof maxaa la yiraahdaa wadankiina ku kalsoonay
naftaada waxaa noqonaya qof uusan isu kalsooneyn. sidaas darteed number 1 isu kalsoonow, wadankaada ku kalsoonow. marka kadib waxaa noqonaysaa qof maaragtay oo wadankiisa ku kalsoon oo guuleysta, asagana isu kalsoon, naftiisa kalsooni ku qabo, wax walba uu qabto inuu ka mar dhalin karo, shaqo walba uu qabto inuu ka mar dhalin karo. maxaa la yiraahdaa shay ka mar dhaliyo, haddii aa waxaas ka mar dhalisidna waxaa noqonaysaa qof guuleysta, waqti walba guuleysanaysaa. sidaas darteed saa u wada guuleysano, aadna aa u guuleysatid, shaqada ah isku kalsoonow. walaalka uusan shaqo haysanana caawi bar. hadda sida mootooyinka maanta mawduucuna uu yahay mootooyinkaas oo kale, haddii aa qof walaalka aa mooto bartid, aa dhahdid saaxiib kaale waa ku baraa mootadan, markaa baratid kadibna waxaa sameysaa ku shaqeyso adigana ku shaqeyso. markaa baratid lama weynaayo mid oo qof oo qaraabo ama ehel ama asxaab ama qof caadi oo ganacsata ah, qof oo mooto uu leeyahay lama weynaayo. maxaa la yiraahdaa shay lama weynaayo. marka saas darteed suu ugu shaqeysan lahaa isagana maanta bar, beriisuu kaaga abaalkaaga hayo, isagana naftiisa iyo qoyskiisa iyo familkiisa u badbaadin lahaa, wax wanaagsan ay u tahay. marka muhiimadayna maanta waxay ahayd inaan ka hadalno qaybta mootooyinka moodada shaqada wax waaye maxaa shaqo ah oo ay qaban karaan dhalinyarada oo meesha yaala mugtahay. marka waxaa number 1 u ah hadda inay mootooyinkaas ay sifanayaan, maxaa la yiraahdaa ay u shaqeystaan. maanta diirad waxay noo saarnaa mootooyinka bajaajta oo dhalinyarada ay ku wadaan dhammaan gobolada. aad u yar tahay gobol aysan joogin mootooyinka, gobolada oo dhan hadda way jirtaa badana. marka sidaas darteed maadaama ay jirto yaa wado marka boqolkiiba 99 dhalinyaro. marka idinka hadda waa ladin jecel yahay, hooyadaa ku jeceshaa, aabaha ku jecel yahay, shaqayso, noqo qof shaqadiisa ku kalsoon oo meel ka saari karo. haddaa noqotid beri maxaa noqonaysaa nin aad u wanaagsan, lagu kalsoon yahay, sharaf leh, qiimo leh. marka mawduuceena maanta wuxuu ku saabsanaa intaas. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan subscribe saar channelkeena haddii aad ku cusub tahay, haddii aadna fiirsanayso oo maxaa la yiraahdaa aad joogtay horena la joogtay si fiican noo daawo. waxaa naga faa'iidi doontaa wax aad u wanaagsan. maalin walbana waxaan rajaynaynaa, maalin lama dhihi kariye, waxaan rajaynaa isbuuci 2 mar ama 3 mar inuu nii soo galo mawduucan, sida haddaba aan fursad u helo. maanta waxaan ka hadlaynaa mooto bajaajka, laakiin beri iyo maalaha soo waxaan ka hadli doonaa maalin walba shaqada kale soo xigta ugu fudud oo ay qaban karaan dhalinyarada iyo haweenka. marka saas waaye mawduuc. waan ku mahadsantahay daawashadaada qurux badan. fadlan subscribe noo saar, like iyo commentina kasoo bixi. haddii aad sidii daraato kale igu dhiirigelisaan waa sii wada doonaa. haddii aadan igu dhiirigelinin oo aad dhahdaan mawduuca maanta wuu qaldanaa, na comment kasoo bixi, duu fikirkaaga kasoo dhiibo. waa ku mahadsan.